Ku soo dhawaada daawadayaal bulshada cusub. Aad u jeedaan waxay u maleynayeen inay u dhammaatay waxayna ka quusteen nolosha. Waxay bilaabeen inay codad u duubaan ehelkooda iyo dadka ay aadka u jeclaayeen. Sanadkii 2016 Jacob Jald oo ahaa quuso u dhashay waddanka Australia ayaa waxa uu ka lumay koox uu la socday oo quusayaal ahaa badweynta dhexdeeda. Jacob Jald ayaa waxa uu ka lumay dadka isagoo gunta hoose iyo sagxadda badda jooga. Kadib markuu bannaanka u soo baxay ayaa waxa uu waayay kooxdii la socotay meel ay jaan iyo cirib ay dhigeen. Cadceeddii oo sii dhacaysa iyo weliba biyaha badda oo aad u kacsanaa madow badanna lahaa ayaa waxaa u caddaatay in uusan badbaadaynin. Wuxuu go'aan ku gaaray inuu fiideo iska duubo isagoo macsalaameynaya dadkii uu jeclaa, waalidkiis, walaalihiis iyo weliba axsaabtiisa. Sun's going down. Takes after a trawler for about an hour. But obviously I couldn't keep up. So that's it. Waxa uu sheegay in uu waayay kooxdii la socotay doontii ay wateenna meel ay jaan iyo cirib ay dhigtana uu la'yahay. Kooxdiin inay nool yihiin in ay dhinteen war iyo wacaal uusan ka haynin. Wuxuu dhahay that's it, halkaas ayay igaaga eg tahay, maanta ma badbaadayo. Waxa uu kale uu ku kaftamay isagoo weliba quus jooga in ay maantahay maalintii u dambeysay nin libaax ahaa. Laakiin nasiib wanaag ugu dambeyntii waxaa hawada ka soo muuqatay diyaarad badbaadinaysay oo isaga qudhiisa baadigoobaysay. Sidaa ayuuna ku badbaaday Jacob Jald. Waxa uu sheegay xilli dambe markuu interview dhiibayay in ay badbaadadiisa qayb ay ka ahaayeen markii laga soo tago kooxdii badbaadisay jaakadiisii uu xidhnaa ee lagu quusiyay. Wuxuu sheegay inay aad ugaaga saaciday inuusan biyaha quusin. Wuxuu kaloo ku kaftamay inuu yahay isaga qudhiisa nin aad u xasiloon, aadna u degan, qalqalna uusan gelin. Sidaa ayuu ku badbaaday Jacob Jald. Haddaba saaxiibayaal, sheekadani ku dhacday Jacob Jald waxaa ka mucjiso badneed oo ka yaab badneed mid iyadana ku dhacday Harrison Okena. Harrison Okena waxa uu ahaa 29 jir kuuk ah ama cunto kariye ah sidaad u taqaano. Waxa uu la socday markab lagu magacaabo Jackson 4. Jackson 4 waxa uu ahaa markab kalluumaysi ah. Waxa uu ka kalluumaysanayay xeebaha waddanka Nigeria markii ay ciladani ay ku timid. Cilada ay ku timid awgeed ayuu la degay markabka ama uu quusay. Intuusan degin ayuu signal bixiyay inay ciladii haysato. Badbaadiyaal iyo quusayaal u dhashay waddanka South Africa ayaa tegay halkii markabka uu ku degay. Waxayna ku xidheen markabka qalab lagu ogaanayo in weli dad nool markabka hoostiisa laga helayo iyo in kale. Qalabkii waxa uu sheegay in dad nool weli ay markabka hoostiisa ka neefsanayaan iyo sagxadda badda. Kadibna waxaa go'aan lagu gaaray quusayaal in loo diro si loo soo badbaadiyo weli dadka nool ee sagxadda badda hoosteeda ku jira. Quusayaashii markii ay yimideen sagxadda badda waxay qol ugu tageen Harrison Okena. Harrison Okena ayaa 3 maalin iyo 3 habeen halkaasi biyo la'aan iyo cunto la'aan iyo weliba mugdigii badda halka ku noolaa. Badbaadiyaashii iyo quusayaashii qalab ayay ku xidheen si ay u soo badbaadiyaan Okena. Okena ayaa la soo badbaadiyay. Gadaal dambe waxa uu ka sheekeeyay Okena sida la yaabka lahayd uu u badbaaday.
cilmi baarayaal ayaa waxa ay sheegeen inay baaritaan ku samayn doonaan oo keena si ay u ogaadaan habka mucjisada leh ee uu badbaaday 3 maalin 3 habeen badda hoosteeda iyo sagxadeeda isagoona wax cunto ah wax biyo ahna haysanin. sanadkii 2016 ayaa Roberto Lingo waxa uu ku lumay lamadegaanka loo yaqaano Muhega. Roberto waxa uu lugeynayay buuraleyda Joshua loo yaqaano ee ka mid ah lamadegaanka Muhega ee gobolka California. heerkulka lamadegaankaasi waxa uu gaaraa 45 digrii Celsius. Roberto waxa uu sheegay lug ayaa ii baxday ayuu yiri kadibna waxaan ka soo dhacay buurtii aan ku lugeynayay. Jugxun ayaa iga gaadhay buu yiri dhabarka iyo waliba lugaha waan dhaqaaqi waayay. waxa uu isku dayay inuu waco wiilkiisa laakiin waxa uu sheegay in nadweyga taleefanka ay u shaqeyn waayay. kadibna wuxuu go'aan ku gaaray inuu moobilkiisii muuqaal isaga duubo isagoo oo sheegay in qof uun ay heli doonto moobilkani. waxa uu yiri waan idin jeclahay meel kastoo joogtaan aniga ma awoodo inaan dhaqaaqo. wuxuu sheegay kale inuu maqlayo cod helicopter laakiin dhawaaqiisa iyo codkiisa aysan gaaraynin. wuxuu isku dayay in uu koofiyadiisa tuso laakiin cidna waa ugu jeedi weysay sida uu sheegay. waxa uu sheegay inuu cunayay caleenta geedaha iyo waliba biyaha uu watay oo uu dhaqaalaysanayay si uu u badbaado. ugu dambeys waxa uu sheegay inay u timid helicopter halkaas oo uu joogay sidaana lagu soo badbaadiyay. daawadayaal sidee kula tahay adiga ma taqaanaa dad noocan oo kale ah oo la kulmay xaalada ay iska quustaan codadna u duubaan ehladooda iyo dadka ay jecel yihiin? haddii aad ka heshay barnaamijkani like inoo saar nalana xidhiidh insha Allah.